calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhowaada daawadayaal qiso cajiiba. Nin wanaagsan oo qalbi fiican, ilaahayna ka cabsada, dadkana jecel, dadkuna ay jecel yihiin isaga. Waxa uu lahaa maqaaxi yar oo hal qol ah, wuxuuna ku gadi jiray falaafil, sandwich, ukun iyo cuntooyin la mid ah. Wuxuuna lahaa macaamiil iyo shakhsiyaad klienti u ah oo uga imaada meelo aad u fogfog. Ninkan wanaagsan waxa uu dhalay laba wiil oo waaweyn, waxayna kala shaqayn jireen maqaaxidiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiilka weyn waxa uu damac iyo hunguri ka galay in uu yeesho maqaaxida kaligiis, wuxuuna ku wargeliyey aabihiis in uu rabo in uu shaqada ka tago, lana siiyo qaybtii uu ku lahaa maqaaxida. Arrintaas oo ka xanaajisay aabihiis, waxa uu u sheegay aabbihii, wiilkaygiiow, maqaaxidan waa irsaaqad ilaahayna siiyey, faa'iidadeedana waxaan u qaybsannaa si isku mid ah, ee maxaa kugu dhacay? Wiilkii waxa uu ku adkaystay go'aankiisii, aabbihiina waxa uu siiyey wiilkii hanti ka badan intii uu saami u lahaa. Wiilkiina waxa uu ku furtay maqaaxi ka soo horjeeda maqaaxida aabbihii, wuxuuna ku qortay brand name isla magacii maqaaxida aabbihii, si uu u helo macaamiil badan. Maalmo kadib, wiilkii waxa uu arkay in macaamiishiisu ay aadaan maqaaxida aabihiis, maqaaxidiisana ay cidna imaan. 2 bilood markii ay maqaaxidiisii furneed, waxa u caddaatay wiilka in maqaaxidiisu wax faa'iido ah aysan soo xareyn intii ay furneed, macaamiilna uusan helin. Maalinta ka dambeysana in uu khasaaro cusub uu galayo. Kadib wiilkii waxa uu ku fekeray in uu aabihiis suuqa ka saaro, beenna uu u geliyo magaalada, isagana maqaaxidiisu ay kala kacdo, macaamiisha aabbihiina ay isaga ku soo wareegaan. Waqti badan waxaa geeriyooday aabbihii, dadkuna waa ay ka murugoodeen geerida aabbihiis, laakiin wiilku waa uu ku farxay geerida aabbihiis markii uu maqlay, waxaana uu la wareegay maqaaxidii aabbihiis, waxa uuna ka buriyey walaalkiis maqaaxidii isaga ayaa yeeshay. 2 maalin kadib dhimashada aabbihiis, waxa uu u imaaday wiilkii maamo waayeel ah oo faqiir ah, korsatana 2 carruur ah. Waxa ayna weydiisatay in uu siiyo biilkii uu aabbihii bil waliba siin jiray si ay carruurteeda ugu korisato. Isla markiiba waxa uu xasuustay wiilkii xadiidkeena rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa, acmaasha waxaa ugu fadli badan qof mu'mina qalbigiisa inaad farxad geliso, dhar siiso, baahidii tirto, xaajaadkiisana aad u guddo. Waana xadiidkii uu aabbihiis maalin walba u sheegi jiray. Iyadoo taasi jirtana, maamadii waxba ma uusan siin. Waxa uu u ballan qaaday in maalmaha soo socda uu u soo dirin doono biilka. Muddo kadib, wiilkii waxaa ku dhacay cudurka loo yaqaano qalalka ama shalalka, xubin jirkiisa ka mid ahna waa uu nuuxin waayey. Kadib xaaskiisa ayaa u sheegtay in cudurkan uu yahay caro iyo ciqaab xagga Ilaahay ka imaatay, lagana gudayo khaladkii uu aabbihiis ka galay. Isla markiina waxa uu xasuustay maamadii waayeesha ahayd, waxa uuna u diray biilkii uu aabbihii u diri jiray bil kasta. Alle ayuuna u toobad keenay, dambi dhaafna weydiistay, wuxuuna u duceeyey waalidkii iyo aabbihii. Alle ayaa caafimaad siiyey wiilkii, wuxuuna dib u furay maqaaxidiisii iyo maqaaxida aabbihii. Shaqadiina waxa uu ku soo celiyey walaalkii, uuna ku dhacay wax uusan filayn ayuu arkay, waana in macaamiishu ay soo badanayeen sidii waagii uu aabbihii ahaa. Daawade, qisadeenu maanta inta ayay ku eg tahay. Haddii aad ilaa iyo inta aad ila soo jirtayna, waad ku mahadsan tahay.